waxaa Soomaaliland ku habsaday sixir barar wata sarif barar waqtigaasi oo dalku ku jiray xaalad aad u qalabsan oo murugsan xukuumadii waqtigaasi ee Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal miisaaniyad la sheegi karo ma lahayn haddana hal sano raashin ku filan wadanka oo dhan ayay keentay kaasi oo ay dawladdu ku wareejisay ganacsatada qiimo jaban ay ugu wareejisay si ay uga iibiyaan shicibkana ugu iibiyaan qiimo jaban Allah u naxariistay Cigaal waqtigaasi waxa uu adeegsanayay saxaafadda Soomaaliland oo ka koobnayd markaa jaraa'idka iyo raadiyo Hargeysa oo culays ka saaray si ay dadka ugu gudbiyaan qiimayaasha loo gooyay shay walba maciishada iyo sidii xaaladaasi looga gudbi lahaa nasiib wanaag Ilaahay waqtigaasi waa u fududeeyay maciishadii iyo sarifkiiba waxay ku soo noqdeen halkoodii waxa weeyaan sicir bararkii iyo sarif bararkii aanu ka shaqeynay horta mid weeye ta u horeysa waxaan doonayaa inaan idin sheego waxay ahdigay noogu qoraa mabda'eenu ahaa laba beddelin iqtisaadkeenu iyo ganacsigeenu wuxuu ku dhisnaanayaa weligiina haddana ku dhisan yahay mid xora inuu yahay free enterprise waxay la oran jiray ayuu ku dhisan yahay laakiin caalamka marka khalal galo ama laaxin galo wadcigii iyo nidaamkii tijaaradda iyo ganacsiga iyo iqtisaadku ku socday waxa la sameeyaa wax la yiraahdo dawlad waliba hadda laga wadaa Mareykan laga wadaa waxa la sameeyaa waxa la correction anigu markii aan ganacsata ahaa ee odayga aabbahay la shaqeeyay si lagu shaqeeyay sidii aan u ganacsan jiray waa ma jirto maanta waa soo doonayaan ku noqon ininku keeno dabad wax ka keeno dadkii gaarsiiyo oo mid bakhaar la iyo mid maxayday suuqa la fadhiyo oo warata intaba uu isaga leeyahay macaamiil uu gaarsiiyo dukaan waliba leeyahay oo dadkii markaa sidaas waxay ku gaaraan waxay noqotay inaan wixii ay nimaabal marka waxaanu samaynaynaa maanta waxa weeye correction galay nidaamkii iqtisaadka dalka oo keentay in madax banaani dad ku amarku taagleeyaan maxay hayday waxay iqtisaadkeeni iyaga oo wax ay cilaaqaad ay ku leeyihiin aanu jirin ayaa haddana ay iyagii maamulayaan maalin walba caalamka kale waxa la sarrifa baananka soo saara central banka sarrifka soo saara oo wiigiyo mar caalamka dhamna dhageysta inaga nin suuqa jooga ka soo baxaysa laba nin oo waxa la wax iyagu haystaan jirin waxa la waxay sarrifayaan aanu jirin ayaa halka intay makhaadkooda yimaadaan maanta waxa lagu sarrifayaa sanku magaasa inta lagu wada cararo kaaladii lagu cararo ayaa dalkii oo dhan baa mashriq ilaa maghrib laga ridaya Hargeysa maanta wuxuu ka joogaa dollar sanku yani correction kii doonaynu samaynayno dadka gacantooda ka saaro iqtisaadkeena oo ku soo noqdo dadkii mas'uuliyiinta ahaa ee waxan iyagu danaynayay ee dantooda ku jirtay ee hadduu xumaadana uu ka xumaanayay markuu wanaagsanaanayay nimanka ganacsatada waa aad iyo aad baan u hadalay waana si fiican isu afkaray waxa la waxaan doonaynaa waxa idin dana waxaan ahayn oo doonaa ma jira khasaaroodaan ma rabno nimanka aad iyo aad baan isu afgaranay halka niman maxay hayday wasaaraha dawladda kamid ah iyo duqa magaalada waxay golahan kamid ah ayaa la qabtay oo wixii habeeya iyagiina idaarado kala gudwe kala oo ka sii hooseeyo oo farsamo yaqaan ayay qabteen oo midna ay ka shaqeyso supply wixii loo baahnaa say u keenayso ogaato waxa Hargeysa looga baahan yahay waxa Gabriel looga baahan yahay waxa tuulooyinka agteen u baahan yihiin wixii loo baahan yahay qolana ay distribution kii samayso qolada loo baahan waxaas weeye baahidi waana taas ay u soo uga keenaan bakharadii sanad baan raashinka taynaa wax soo socday iyo wax imanaya iyo waxaanu diri doonaba aanu ku talagalo ku heshiinay nimanka ganacsatada waxay dhahan sanad raashinkeeda annaga lagu sameeyay hadii ka gaabtaanna waa u haynaa sidii lagu keeni lahaa kale waa hayna waa noo yaala dollarka maanta yimi maanta nimankii banka u sarreeyay waa yimi lacag wanaagsan oo aan filaynin oo dollar ayuu maanta ii sheegay intii u dambeysay shalay ka timi berbera markuu ku daro inuu $2 milyan oo dollar maanta ay hayo waa xoolaheena iyo macdinteena iyo maxay hayday ganacsigeena iyo waxa jira wax la yiraahdo invisible income
waxa weeye maxay hayay taarka la soo diray wixii ka soo baxa waxa weeye ragga xaaskooda masaariiftay u soo dirayaan ee meel aan invisible imkani weli maynu organize garay laakiin markaynu kaana ku daray organize garayno waxaynu dabeed uga baahannahay waxaynu haynaa waa ku filan marka waa dalkii waan ugu waxa qura aynu ku fashilaa maanta waxa weeye nacasnimo iyo talaxumo dhexdeena ah oo qura ayaynu ku fashilaa haddii aynu inagu taladeedii yeelano marka anagu haddaan dawladdiina iyo waxaan ka shaqeynay waxaad moodaa inaan maanta wax ilaahay ka dhigo ka soo baxnay dadaalna ma hayno maanu yaraysan 12 habeenimo waxa la fadhiyay nimanka guddiga 12 o'clock last night waa fadhiyay berbere inta waa loo socdaa baabuuradii waa soconaya raashinkii waa haynaa waxa weeye inta inaga dhimani dadkii dantiisii inuu garto oo qura samagar waxa lagu leeyahay bakhaarkii soortii aanu ku dhiibnay anagu 80 shilin ku xisaabinay dollarkii 80 shilin ku xisaabinay jabnaanta aanu ku dhiibnay dukaankii aanu u dhiibnay ee aanu idinku dhiibay dadkan ugu dhiibnay islaanta aqalkii ka imanaysa ee miiska u doonaysa waxay maanta qaladii ay karin lahayd inay kiilagii barisay kala iibsato aanu u dhignay meesha ma laha ninkani aanu u dhignay aanu intaana ka macaash oo shaqadii kaga macaash intaana ka sii ayay u soo galaysaa kiilo barisay ma hayo bulay aradeero meel tagay waa halkii baa iga gaatoonay maxaad ku doonaysaa markii saarkii dawladda misakii hore ayarkii hore bay u siibay leedahay waxa la sameynaya marka adeerkii hore bay waxaan adiga iyada loogu dhiibay ammaan ugu hayaa waliba ammaanaanu bilaash u shaqeeyay khidmad loo saaray oo miisaan kala saaraysa iyo intanadu miisayso iyo waxa khidmadaadi inta ka qaado aan u saaray ayaa loo hayaa bal shacbigii idinka indhihiisii dhagihiisii journalist oo jaraa'id oo saa uga raadidaysaan waxaan ninkani u hayo waxay ugu habranayaan waxay tahay waa waxay askariga u horeeyay oo ay u timaado adeer wuxuu ugu yiri soo hore bixitaas ku filayay saydaanka la yiri يا إلهي وحنا شيء إنه وحنا الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا أنت هتقول سمية إن الحسن جاي أعوذ بالله من الشيطان تلا شيطان أنت هتقول سمية أعوذ بالله من الشيطان أنت هتقول سمية أذكر جوار يوجي أي ترى هذا يروح يقول صغير كوار بحر دبنا وصين ما إنه ميلو شغل دبار كنا جيل كانوا درين ليس كنا واقع قاضينا واقع ليس كنا واقع قاضينا ما كنت عيا مرضا بينه سمايو مركا يا نسو غارسي مركا سو قرا اسلانتو اني كدي رتو ترى ما تا قدريركو حتى دولي بريسي دلكتونان maalinta intay bixin lahayd socod siyaada maalinta carruurti yaa biyaha iska cabto aday doonto aday noqoto soo ma garan laakiin ha soo sheegto tiraha adeer socodkii hore wiiga doonayay bal markii ina wixii nala ogaataan hadaatiin maxay ahayd jaraa'idkii dadka indhihiisa iyo dhagihiisa ilaatihiin ina waxa uu wanaagsan uu maxay ahayd waxaad moodaa dadkii hadii la yiraaho maxay ahayd waxa la gubo waxa la dumano waa la isku raacaya bal yani qudrad alqaadi haddaan maanta halkaas la dab qoriya dab qobqaato wax ila wada ma waayeen haddii waran shahaadan oo aynu ilaahay ka yaabno wax allaaliyo wax ku yeelaya ma jirto wax u soo jeeda bal waxaan idinka baryayaa maxay ahayd wixii idinku soo jeeda bal تأييد ملك دولة هلاي لكن وحي ناشنال كوزا قرن مدي سوماليلاند وحي أنا ماشي يسوقني مدبكي أنا شو سنة إني كبحية كوري دواجب بيدين كتح مركزين ما تحينا وحوي وحي سوماليلاند كل اسمه تاسعدنا إذا كو أنا قدرين عدنا يدين كو أبار حينين قومي مديني يوم حياة إذا ودين مديني بيواجب يدين كتح لينا dadkii ka raadidaan wixii danto taydin ka garanay oo maxayday waa aad baan loo akhristaa jaraa'idkiina oo maxayday dadku wuxuu ka qaataa waayo kelmadda qoran dadkeena badalaaba oral society kelmadda qoran quraan bay u yaqaaneen waxa qoran quraan bay u yaqaaneen waan akhristay jaraa'id waati ku tiilay bay oranayaan waati ku tiilay jaraa'id ku tiilay oo qorantay anaga akhrinay oo naloo akhrinay marka taas intaasaan idinka soo idinkaga soo jeedinaya ta kale waxa weeye maxay ahayd aan idana waxaan ka oran lahaa waxa weeye dadkii ifkan maxay ahayd madax cirka ilaahay inooga soo rogi maayo malaa'ig dalkan inoo wada
يا ذلك وحي إنك وضنينا وات أنا كجب على لا ثقلني وحي لنا ما نام بين حكويلين ذلك وحوي مكان قيم كيف علم وأكب الأوضاع وعيب نقطة ذلك يدك قيم دي قيم كان وحرمدا أعمال مرين كرتان إذنكوا وحكرني سكرتان أي كم ده مركا وحن أنا قد يكون قراسي لك يوقع الحكم حدنا وأين مركا وحنا السياحة الدولة دا وأين ينعينا كفرين ينعينا وعين حدنا الله يلا هن كاهب الله يلا ولا الله يلا وعيبه عيبه يعني والقيم كي عين كهان إن كنت ذا شان أنت وحكسو اللسان وجرائد كينو بل فقرتنا هات يعني حتى ألكم ما هاي كارتون كان هالنقطة ها كنت كارتون كان هالنقطة ميرو إني كجيت توحد عمية قيم كيسو علنتود يوحي حمان تود يوحي ونكتنا أمان تود إني ميل كجيت توضد قيم كيلو سعودي أنا واحد أدمن يزوج